badan ay leeyihiin oo maxaa la yiraahdaa kaligood inta wax isku darsadaan shuruudihii kale uu ku xiraayay ama saamilay ama limited ha ahaadaan oo qofka hantidiisa loo raacanayo qofka kaligiisna waa dhacda qof iyo ka badan oo isu tagay shirkad ay sameeyeenna haddii lacagta ay ku lunto waa loo raacan karaa sababta aan u leenahay maxaa magaca marka waa laga oran karaa shirkad ha loo helo magac ku habboon qofka markuu company furanayo muxuu noqonayaa magaca ha loo helo laakiin dambina inay tahay ma u malaynayo caalamka oo dhanna waa ka jirtaa waayo annaga shakhsiyaad isu tagaan nahay haddaad tiraahdo haddaad qof kale soo helin horey uma dhaqaaqaysid waddankaanba horumar ma gaarayo aniga midda kale oo aan aad u danaynaya waxay tahay shirkadaha hadda qodobka 12aad wasaaradda ganacsiga haddaad shirkad inaad furato qodobka 12aad shuruudahooda waa marisaa laakiin qodobka 12aad wax aan ku qornayn iyo haddana sharci uga dhigtaa wasaaradda markay ganacsiga ku siiso shati waxaa ku qoran 12 bilood kadib inaa haddana cusboonaysiin usoo laabato oo sanad walba aad ku soo laabato ama wasaaradda arrimaha gudaha ha ahaato ama wasaaradda ganacsiga ha ahaato ama wasaaradda kalluumaysiga ha ahaato shatiyada ay bixiyaan ama shahaadooyinka ay bixiyaan oo dhan kulligood waxaa ku qoran hal sano caalamka meelay ka jirto anigu ma arag Kenya nagu dhagan maalinkaas samaysato yaa ku kala tagaysaan haddaa wax cusboonaysiinayso deganaashii hadda aan ka hadlaynay lacagtii lagu lahaa bangiga ma taala waxaas sano walba laga xaqiijinayaa inay lacagtii wali lacag ku taala bangiga inaad sharci ku leedahay dalka oo qof meel loo raacdo leh aad tahay